أكثروا ذكر هادم اللذات والنبي يقول صلى الله عليه وسلم waxaa badisaan xusuusta aad xusuusantiin mar kasta midka wax kastoo macaan oo aad haysataan idinka jaraya haddaad reer leedahay islaantaada asay bay qaadaysaa waa ka dhimanaysaa ciyaalkaagii waa agoomoobeyaan shaqadaadii waa kaaga dhammaatay ganacsigaagii wuu kaaga dhammaaday wax kastoo aad haysatay kabaha u yare aad gashatide waa ka dhimanaysaa dad baa waxaas kala dhexlaya oo qaadanaya dib dambe ma lagu arkayo ilaa adduunyadu rogmato ilaahay agtii la taga mooyaane soo marka waxa si rasuulku u cabiray soomaha saxde wax kastoo macaan oo haysta uu ka goynaya arrintaasi marka waxa la qofka muslimka inuu dadaalkiisa yeesho rasuulku sallallahu alayhi wasallam habeenkii niska dambu kici jiray wuxuu ahaa marka Aisha waxay leedahay rasuulku kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam idha dhahaba thuluth al-layl habeenka saddex meelood markay laba tagto meel harsan tahay qaama waa kici jiray markaasuu oran jiray udkurullah wa hoydado ilaahay xusuusta jaa'at ar-raajifa tii ruxmaysa gilgilanaysa waa timid tatbacuha ar-raadifa tii dabagelaysa oo bunkii labaadna waa lagu dhufano aakhiradii waa timid jaa'a al-mawtu bima fiih jaa'a al-mawtu bima fiih mawdkii iyo geeridu waa timi iyo wixii ku dhex jira oo sakaraad iyo mushkilada uu leeyahay rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayh maalmaha kamid saa wada garanaysaan Abdullah ibn Umar rasuulku halkaa garabka abuu qabtay markaasuu kun fi dunya kaannaka gariib oo caabiri sabiil adduunyada waxaa ku noqotaa qof qariib ah ama qof musaafir oo wadada haya ku noqo markaasuu isna wuxuu dhihi jiray haddaa galabtii gaarto subaxa sugin subax haddaa gaartidna ha sugin galabtii caafimaadkaaga ka faa'iideyso intaadan dhiman iyo geeridaada uga faa'iideyso noloshaadana geeridaada uga sahay qaado saasuu oran jiray adduunyadan aynu aad iyo aad ugu dhegannahay wax badan waxaynu ilowsiinayay ka mid tahay oo khayr badan aan ka helayno rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam ma mathali wa mathalu dunya adduunyada iyo aniga tusaalahaygu wax kale maaha ilaa ka raakibin saafara fi yawmi sayfin waxa uu la mid yahay uun qof safray maalin qorraxdu kulushahay fastadalla taxta shajaratin oo geed hoostii harkiis harsaday saacatan waqti yar min nahaarin oo maalinta ka mida uma raaxa wa tarakaha kabacdina ka tegey buu rasuulku leeyahay salawaatullaahi wasalaamu calayh raggii culimmada salafka ahaa nin ka mid ah ayaa wacdinaya dad maalin khudbad u akhrinayay fa ina addunyaa daaru mamarin adduunyadu waa daar la marayo waalaakhiratu daaru maqarin aakhiro waa daar lagu sugnaanayo fakhuduu limaqarikum min mamarikum meeshan aad ku sugnaan doontaane aakhiro ah u qaata sahaydeeda meeshan adduunkaad sii maraysaan walaa tahtakuu astaarakum cinda man laa takfa calayhi asraarakum ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idinka daboolay oo asturkiisa oo macaasida iyo dunuubtu ilaahay daboolka idinka saaray daboolka ha ka qaadina axad aanay waxba ka qarsoonayn oo sirtiinna og akhruju min addunyaa quluubukum quluubtiinna adduunka ka saara qabla an takhruja minha abdaanukum intaanay adduunyadu jidhkiinna ka bixin buu leeyahay qofku waa inuu u fiirsadaa meeshuu ku dambaynaya ma jannaad geli doontaa mise naar qofku inuu aad ugu fiirsado oo ilaahay quraanka kariimka wuxuu leeyahay yaa ayuha annaasu ina wacda allahi xaqun dadow ilaahay ballanqaadkiisa iyo wacdigiisu dhab weeye xaqiiqa ah xaq ah falaa taqurannakum alxayaatu dunya noloshan adduunyo yaanay idin kadinin oo yaanay idin dagin ha ku dagmina walaa yagurannakum billaahi algaruur ilaahay yaanu idinku dagin oo idinku kadinin midka dagista badan ee shaydaanka ah ina shayطaana lakum caduw shaydaanku cadow buu idin yahay fatakhiduuhu caduwa cadow ka dhigta inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi saciir inta isaga raacda wuxuu ugu yeerayaa inay noqdaan ahlu naar buu ugu yeerayaa aladiina kafaruu lahum cadaabun shadiid waladiina aamanuu wacamiluu saalixaati lahum makfiratun waajrun kabiir gaalana cadaab bay leedahay muuminiinta camalka wacan samaysanna makfiro iyo dembi dhaaf iyo ajar weyn bay leedahay markaasaa ilaahay wuxuu tilmaamay afaman zuyina lahu su'u camalihi fara'aahu xasana bal qof camalkiisii xumaa inta loo qurxiyo wanaag u arkaya faina allaha yudilu man yashaa wayahdi man yashaa qofkuu raba ilaah isaga hanuuniya kuu rabana isagaa dhumiya falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat dadkan aad waaninaysay wax u sheegayso naftaada ha ku halaagin baa ilaahay leeyahy ina allaha caliimun bima yasnacuun waxay samaynayaan ilaahay waa ogyahay subxaanahu wa tacaala xadiidkan cajabta badan gebagabada hadalladeenna xadiidkan bal fiiri waa xadiid inagoo dhan ina taabanaya rasuulku wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam
maa min cabdin mu'minin ma jiro qof mu'min ah addoon mu'min ah rag ha noqdo ama dumar ha noqdo ilaa walahu danbun wuxuu leeyahay dembi yactaaduhu uu qofkaasi caadaystay dembi samayntiisu caadaystay alfay'ata bacda alfay'a mar kale ay ka dambayso uu samaynayaa waxaas go'aan buu gaaray inuu iska dhaafo haddana waa kana waa ku soo noqday dhallinyarada aad bay ugu daran tahay maala filmaantuu daawadaa go'aan buu gaarayaa filin dambe inaan daawanin waa iga go'aan usbuuc ka bacdi haddana waa kana waa ku jira waa daawanaya wallahi waa khal qaar baa dhaarta soo moogid waan dhaartay sheekhow waxaan daawan jiray wax xun waan ka dhaartay waa ku soo noqday maxaan sameeyaa kafaar gud maa layga rabaa qaar baa dhahay nadar baan gelayaa waxa inaanan samaynin moogta marka rasuulku wuxuu leeyahay yactaaduhu alfay'ata bacda alfay'a dembi uu caadaystay macbiil ka dhigtay mar ka dambeeya aw danbun huwa muqiimun calayh ama dembi uu ku sugan yahayba waaba ku sugan yahayba kan marna ka tegaya marna samaynaya mama ahaba laa yufaariquhu aanu faaruqayninba xataa yufaariqa addunya ilaa adduunyada ka tagaba ina almu'mina khuliqa mufattanan tawaaban nasiyan idaa dukira dakar qofka mu'minka ahi waxaa la abuuray isagoo imtixaaman waa toobadkeen badan yahay isagoo dembiyadaas ay ka dhacayaan haddana waa qofka hadday tukanayo markastoo aad tukataaba dee waa dembi dhaaf oo weysadu waa dembi dhaaf oo cibaadadu waa dembi dhaaf tawaaban waa mid toobadkeen badan nasiyan waa mid halmaan badan laakiin haddii la waaniyo waanaduu qaataa buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam waanaduu qaataa xadiid kale wuxuu ahaa idaa araada allahu bicabdin khayran haddii ilaahay addoonkiisu wiil iyo gabar wuxuu rabaa ha noqdo uu khayr la doono istacmalahu ilaahay wuu shaqaalaysiiyaa shaqaa la geliyaa saxaabadii way fahmi waayeen ilaahay shaqaaluu ka dhigayaa maxay tahay waa ka shaqaysiinayaa qiila yaa rasuula allahi wa kayfa yastacmiluhu rasuulka ilaahayow sidee uga shaqaysiinaya yuwafiquhu licamalin saalixin qabla mowtihi shaqaysiinta waxaa looga jeedaa qofka camal saalix oo wanaagsan baa ilaahay waafajinayaa intuu dhimanin isagoo toobadkeenu dhimanaya waxaa laga yaabaa inaad aragtaan qof macaasi iyo xumaan ku jiray oo toobad keenay salaadii bilaabay fiicnaaday cibaadaysanaya oo tii ilaahay u timi wallahi ninkaas toobadkeen buu ahaa masaajid kama bixi jirin soonkiisa salaadiisa nin hagaagay buu ahaa baa la dhahaya ilaahay baa saa u qorayo kitaabkiisa marka hore waxaa ugu qornayd caloosha hooyadii markuu ku jiray inuu ahlu janno yahay baa u qornayd qofka ilaahay markuu dhasho wuxuu dhalanayaa qof baa waxay u qorantahay ahlu janno inuu yahay baa u qoran markuu yimaado sidii unbuu ku soconaya camal wanaagsan jannu ku gelaya midna markuu yimaado isaga u qorantahay ahlu janno inuu yahay xogaa ciyaala suuqnimuu samaynaya sidii saxa ahayd ee u qornayd buu ka leexanayaa ciyaala suuqnimo iyo dembi iyo macaasi buu samaynayaa laakiin marka dambe muxuu ku soo dhacayaa waddadii wixii u qornaa oo khayrkaa buu ku soo dhacaya reexamarka waxay dhahaan luqluq marow laasin laamigu imaanaa soo ma wuxuu soo ciyaala suuqayo soo warwareegaba marka dambe xaguu ku soo jiiraynaya wuxuu ku soo baakimayaa meeshii u qornayd buu ku soo baakimayaa marka halkaasuu ka bilaabayaa baabuurkii macaasida waa ka tegey isagoo caadiga halkaa maraya jannuu ku gelaya